Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda dalka Itoobiya ee faraha ka sii baxaysa. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dagaalada Itoobiya oo sii socda ay horseedi karaan burburka dawladnimada waddankaasi iyo inay qaxooti badan ku soo jabaan wadamada Geeska Afrika iyo inay ururada xagjirka hunguriyeeyaan inay xidhiidh ku yeeshaan dalka Itoobiya. Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Colaadda dalka Itoobiya oo 13 bilood ka hor ka bilaabantay gobolka Tigray ayaa haatan ku fiday gobolada Amxaarada iyo Canfarta, waxaana mucaaradka Tigray ay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay ka guulaysanayso mucaaradka. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmedna waxa uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu dagaalka ka hogaamin doono furinta hore. Colaadda Itoobiya ayaa ilaa haatan horseeday qaxa malaayiin qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi iyo kuwa u cararay dalka Suudaan. Waxaa sidoo kale ku dhintay kumanaan kun oo qof. Haddaba maxaa keenay in xaaladda Itoobiya ay halkan soo gaadho oo faraha la iskula tago? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye. Way soo socotay inaad xasuusatay in kala mooyaane labadii election amba saddexdii election intuuna xataa meelas dhimanin mar walba wuxuu iska ahaa election aan ahayn xaq iyo xalaal aan ahayn. بالمثل at one point waxaa jiray hal qof oo opposition ayaa loo doortay baarlamaanka dhan ee mataqaanaa dhowrka boqola operation kuna uu sii badanayay. Community-ga Oromaduna way eed badan bay sheeganaysay, Soomaalidu eed badan bay sheeganaysay, Amxaaradu eed badan bay sheeganaysay. Conflict-ku Addis Ababa khaas kuwiina wuu socday oo ay leeyihiin Oromadu Addis Ababa waxay ka mid tahay regionka Oromada iyo kama mid aha iyo land la fidinayay. Addis Ababa oo landkeega la fidinayo oo la leeyahay federal government-ka ayaa leh, Oromaduna ay leedahay dhulkaygii baa lagu soo durkaya. Marka haddaad isku geyso intaasoo dhan inay soo socoto dhibaato way caddayd. Waxa kaliya aan caddayn siday u qaadanaysaa in maaragtay waqti yar oo gaaban in maaragtay wadankii Afrika ee ugu population badnaa ee 200,000 amba 2 milyan oo qof inaan idhaaho oo ciidamada police iyo cid walba iskugu jira lahaa, sidee buu mar kaliya disintegration ugu dhacay? Kacdoonnadii ka dhacay Itoobiya waxay ugu dambeyn horseedeen inay isbeddel sameeyaan xisbigii talada hayay ee EPRDF, waxaana sidaas xukunka ku qabtay ra'iisul wasaaraha haatan talada haya Abiy Ahmed bishii Abriil sanadkii 2018. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed waxa uu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka ee Itoobiya isagoo laga soo doortay magaalada Jigjiga. Waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Dalkan 2018kii uu isbedel ka dhacay. Isbedelkaasna wuxuu salka ku hayay kacdoonno ay dhalinyarta qeyro ee Oromada ah iyo kuwa Amxaarada Faano iyo barbaarta Soomaalida ay kacdoonna ay dhalinyaradu ka wadeen dalka oo dhan ayaa sal u ahaa in uu xisbiga talada hayay xilliga ee EPRDF ku qasabto in ay gudahooda isbedel ka keenaan oo markaana uu ra'iisul wasaare Abiy gudoomiyaha xisbiga uu noqdo kadibna ra'iisul wasaare loo doorto. Khubarada la socota xaaladda Itoobiya waxay ka cabsi qabaan cawaaqibka Itoobiya iyo wadamada gobolkaba uga iman kara haddii uu burburo wadanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed ayaan weydiiyey suurtagalnimada in dagaalku uu horseedi karo burburka Itoobiya. Waxa ugu weyn ee hadda laga walwalsan yahay ama international community-gu Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada hormuudka ay ka walwalsan yihiin ay leeyihiin dagaalkan haddii aan wada hadal lagu dhamayn waxaa suurtagal ah dalkii Itoobiya la oran jiray inuu burburo, balkanization uu ka dhaco oo deegaano uu kala burburo ama civil war uu ka dhaco qowmiyaduhu ay isbeegsadaan sida Oromada iyo Axmaarada iyo Tigreega. Sidaas oo kale ay markaa uu burbur yimaado sida wadamada Rwanda oo kale ay ka dhacdo xasuuq uu ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, dadka laftirkooda way isweydiinayaan, laakiinse waxaa la isku dayayaa in la maareeyo oo wada hadal lagu dhameeyo. Wada hadalkiina waxaad moodaa in ay si qolada kale ay ka dhaga adeegayso, dawladuna ay si uga dhaga adeegaysa marka hore ay maqalla qabsadeen ay soo afjareen ay nimanka haddana dib usoo garuuleeyeen iyagii markay hadda gacan sarreeyeen oo meelo badan ay qabsadeenna iyagu dhaga adeeg ay la yimaadeen dhankooga.
marka dhaga adaygaas yaa walwal badan dunida iyo wadamada reer galbeedka gelinaya inuu wadankan burburo ama uu civil war ka dhaco. marka cabsidaasi way jirtaa, waana wax macquul ah markaad aragto siday xaaladdu u socoto. haddaba mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ka walaacsan xaaladda Itoobiya iyo sida ay u saameyn doonto gobolka iyo Soomaaliyaba. maxamed cabdirasaaq waxa uu muddo sanad ah soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Itoobiya runtii waxay maraysaa meel adag. horena waxaan u iri waxay ku fiican tahay in arrimahaas ay ku soo dhamaadaan wada hadal iyo is-afgarad. colaad badanaa ka dhacday halkaas. waxaan muujiyey walwalka Soomaali haddaan nahay aan ka qabno in burbur ku yimaado Itoobiya. haddii Itoobiya ay burburto maxaa dhib uga iman kara Soomaaliya? hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca dadka qaxootiga ah, hadday tahay dhinaca isku socodka iyo arrimaha ijtimaaciga? horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini'aadanimo humanitarian disaster oo ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaali haddaan nahay waa arrin aan aad noogu adkaan doonto oo aanan u babac dhigi karin inaan wax ka qabanno. taas walwal way nagu haysaa. waxaa kaloo walwal nagu haya haddii hay-adaha amnigu uu burbur ku yimaado in hubka uu gacanta u galo gacmo khaldan ama dadka shacbiga ah, taasoo keeni karta xasilooni la-aan Soomaaliya iyo geeska Africa oo dhan. sinaba uma fiicnaanayso in dariskaaga oo burbur ku yimaado annaga ahaana uma fiicnaanayso. wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya maxamed cabdirasaaq waxa uu qabaa in haddii hay-adaha amniga ee Itoobiya ay burburaan, taasi ay fursad u noqon karto kooxaha xagjirka ah inay saldhigyo ka samaystaan dalka Itoobiya. waa haddii uu burbur ku yimaado hay-adaha amniga dalkaas, waa kooxaha xagjirka waa ka faa'iidaysan karaan. fikradtaasi la mid ah waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye. sida ay u socoto imika Itoobiya oo dagaalkani loo manage garaynayo, loo wado, populationkii baa la siinayaa hub. awal Itoobiya waxay Soomaaliya kaga duwaneyd iyo wadamada kale ee koonka ku yaalaaba Soomaaliya waxay kaga duwaayeen populationku hub ma haysan. hadda populationkii baa hub la siinayaa, maleeshiyooyinkii baa hub la siinayaa, qabaa'ilkii kala duwanaa baa hub la siinayaa. haddii mar populationku uu hub gacantiisa soo galana waxay noqonaysaa dhibaatada ay keentaa way kasii weynaanaysaa tii hore. waxay u keeni kartaa xasilooni darro ayay u keeni kartaa Soomaaliya, xasilooni darray u keeni kartaa Kenya, xasilooni darray u keeni kartaa Djibouti iyo regionka oo dhan. warbaahinta caalamku waxay dagaalka Itoobiya ku sifaysay mid u dhexeeya dowladda waddankaasi iyo mucaarad. dowladda Itoobiya waxay ku dooday inay la dagaalamayso waxay ugu yeedhay urur argagixiso ah, taasi oo ay diideen mucaaradka TPLF iyagu waxay ku doodayaan in dowladda Itoobiya ay weerar ku soo qaaday ay ku doonayso inay ku gumaado dadka gobolkaasi. hadafka dagaalkoodana waxay ku sheegeen mid ay ku doonayaan inay isaga wareejiyaan xayndaabka ku wareegsan sida ay sheegeen. wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxa uu dagaalka Itoobiya ku sifeeyey sidan. wax kale maahan, waa dagaal sokeeya weeye. waayo waxa isdilaya statekii wada joogay 37 years oo mataqaanaa eriyey Mengistu rejiimkiisii ba hadda dib iyagu iskugu soo jeestay. dad badan baan filayn in Itoobiya ay wadadan qaadi doonto. colaadani ma dagaal iyo gacan ka hadal bay ku dhammaan mise weji kale yeelan doonta? Definitely dagaal baa socda. dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay mararka qaarkood inay cidi badiso uu dhammaado. laakiin haddii la isku barbar dhaco dhibaatadiisu leeyahay wuxuuna noqon karaa dhibaatadii Soomaaliya gaadhay oo kale. weji kalena wuu yeelan karaa oo haddii international community-ga iyo sober mindska ku jooga Ethiopia gudaheeda ku jiro ay keenaan xal dowladda jirtana amba lagu badbaadinayo amba la siinayo exit strategy. nimanka soo dagaalamaya oo dhinac walba ka dagaalamayana la yidhaaho ka jooga urban centriska waaweyn. waayo mar hadduu wuxuu urban centriska waaweyn dagaalku soo galo dhibaataduna way sii badanaysaa. sidee baa colaadani u saameyn kartaa gobolka Soomaaliya iyo gobolka intiisa kaleba?
Soomaaliya iyo gobolka wuxuu u saameyn karaa haddii natiijo fiican laga gaari waayo Ethiopia imika oo hubka la iska dhigi waayo oo la wada hadli waayo. Waxaa dhici doonta in dadka Ethiopia si aad u ogtahayba tiradoodu waxa weeyaan 110 milyan oo ka kooban qabaa'ilkoo dhan. Hadday 5 milyan dhaqaaqdo oo 5 milyan meel ay tagto garan weydo oo ay u soo baxdo regionkuna waxa weeye Sudan, South Sudan, Kenya, Somalia, Djibouti. cid manage garayn karaysaa ma jiro. Waxay ku tusaysaa inay 5 milyan oo qof hadda waa 110 milyan hadday 5 milyan ka soo baxdo. Yurub waxay manage garayn kari weydo wadamada adduunka ugu qanisana 1 milyan oo ka soo tagay Syria iyo Iraq. Welina way la rafanayaan kuwa jooga Poland iyo Eastern side ka jooga refugee-ga. Marka the whole region ka dhanba waxa possible waxa suurtooda in uu ka dhaco xarakad weyn oo destabilization mataqaanaa dawladaha ay ku soo korodho dhibaato badan. Haddaba Ethiopia ma ka badbaadi doontaa burbur ku dhaca? Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Ethiopia ayaan hordhigay su-aashaasi. wallahi markaad aragto reer wasaarihii dalka oo leh frontiga tegaya taladii dalkana waxaan ku wareejiyay reer wasaare ku-xigeenkii. waxaan u malaynayaa halkaasi wax dhaafsiisan oo hadda dialogue furan ma arko. labada gruupba waxay aaminsan yihiin inay dagaalka ku kala guulaysan karaan. marka isku dayo badan oo Mareykanku ergeyga gaarka Feltman iyo foreign secretary-gu isku dayayeen iyo OU-da way jireen, laakiinse intuba waxay muujinayaan guuldarro ay jirto xagga wadahadalka ah. reportiga ugu dambeeyay oo Feltman uu siiyey Mareykanku waad maqlaysay ama waad ka warqabtaa in uu reer wasaaruhu sarkeen uu yidhi xagga iyo waxaan u kacayaa dagaalka front line-ka. marka hadda ima muuqato in dagaalku labada kooxood uu mid uun guulaysta mooye wadahadalkii albaabkii ama daaqadii wadahadalku inay sii oodmaysaad moodaa. Cabdisalaam Cumar Hadliye wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu leeyahay haddii colaadda Ethiopia halkaasi lagu damiyo iyo haddii kaleba waxaa dhaawac weyn uu soo gaaray doorkii Ethiopia ee gobolka Geeska Afrika. dibadda xoog la ku yimi Ethiopia hatta wax ugu fiican ee maanta ka soo bixi kara waxa weeye in la heshiiyo la isku yimaado la ogolaado form of government la samaysto. waxayna qaadanaysaa sanado badan bay qaadanaysaa. dhaqaalihii dib loo dhiso, xoogii ay lahayd iyo political powerkii ay lahayd dib loogu noqdo. bilmathal haddii ay sii socoto mushkiladani another sanad kale hadday sii socoto oo amba 2 sano kale ay sii socoto ma joogi karto AU-du iyo commissionka Africa UN kuna ma joogi karo. waa in relocation meel kale loogu sameeyaa sidii berigii Ivory Coast dhibaatadu ay ka dhacday African Development Bank loo soo raray Tunisia. marka repercussion dhibaatada ka soo socota ay leedahay arrintani waa wax weyn weeyaan. Ethiopiana khasaare weyn ayaa gaadhay, haddii uu sii socdana khasaare kasii weyn baa gaadhaya. midda kalena ogow Ethiopia adiguna waad la socotaa waxa weeye dad wada kala gooniya, wada kala diina, wada kala afa, muddo badanna kusoo hoos jiray guruubadii kusoo hoos jireenna waxa weeyaan guruubada degan dhulka la yidhaaho Highlandska buuraha degan, amba Tigreenka ahaadaan amba Amxaarada ahaadaan. marka dad badan baa qaba ciil gooniya. waxaa socda cadaadis ka imanaya wadamada reer galbeedka iyo dadaal uu wada ururka midowga Afrika oo ay ku doonayaan in xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac ka hor inta aan loo gudbin xalinta khilaafka. hase yeeshee ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feltman waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo in isbedelada ka soconaya furimaha dagaalka ay ka xawaare dheereeyaan dadaalada nabadeed. dadaalada socda ka sokow dagaalada Ethiopia waxay u muuqdaan kuwa sii baahaya isla markaana sii cuslaanaya kuna soo dhawaanaya caasimadda dalkaasi. ilaa haatanna ma muuqato inay dhinacyadu isku soo dhawaanayaan.